dowladda dhan ee wadani ee maanta curatay hal qof oo la magacaabay kama hayno oo aan ka ahayn nin baa layidhi mushahar baa loo qoray hadduu isagan ba awrdhaamiyo oo saadka lagu qaato maraa adigu saamaad ogin ina saluuglow go-aanka ay ka gaadheen ciidanka madaniga ah ciidankan wuxuu u samaysan yahay difaaca dalka jamhuuriyadda somalilan laakiin dowladdu ha isweydiiso kuwa kan naga soo horjeeda ee weliba waalwaalan ee aan cid qabsato lahayn dowlad looga ergooda lahayn dee kuwa cid naga qabanaysaa ma jirto dowladda iyaduna waa mahadsanta laakiin kuwa annagaa iska qabanayna kuwaana haddii aan la iska qaban qurba joog iyo qowqowjoogba halkan waxaan uga dirayaa baaqaas oo ah halkan waxaa ka hadlaya amiir salemaan roble yuusuf ugu horeyn dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer somalilan halkan waxaan kaga hadlayaa galabta laba qodob labadaa qodob oo ah qodobka koowaad waxaan taageerayaa si mugliya miisaan laba u taageerayaa go-aanka ay ka gaadheen ciidanka madaniga ah ee jiidda qurulugud beesha xasan cabdille gudo iyo debed way hadleen iyaga oo go-aansaday inaanay qaramayn doonin ciidankooda taasoo ay sabab uga dhigeen cadowgiiyo dee u muuqanaya taasaan taageeraya oo aan soo dhoweynaya qurba joog iyo qolqol joogba waayo ciidankan wuxuu u samaysan yahay difaaca dalka jamhuuriyadda somalilan dee halkan dhowna waxay isaga muuqanayaan cadowgii dowladda somalilan hadday tiri ciidanka madanigaa waanu qaramaynayna oo dee ciidankayga aanu qabsanayna dee kuwan waa kuwa waalwaalan iyagu cid qabsata ma laha marka dowladdu maba xuma hadday tiri dadkayga ayaan midaynayaa oo qaramaynaya laakiin dowladdu ha isweydiiso kuwa kan naga soo horjeeda ee weliba waalwaalan ee aan cid qabsato lahayn dowlad looga ergooda lahayn dee kuwa cid naga qabanaysaa ma jirto dowladda iyaduna waa mahadsanta laakiin kuwa annagaa iska qabanayna kuwaana haddii aan la iska qaban dee kuwa loo dul qaadan karaya maaha taasi waa taa qodobka labaad xasan cabdille qurba joog iyo qowqol joogba halkan waxaan uga dirayaa baaqaas oo ah kuraasii buuhood la meeday madaxnimadu laba waday martaa midna waa magacaabis madaxweyne ku timaada midna doorashay ku timaada xasan cabdille weyne waxaan leeyahay kuraastii buuhood le ee xasan cabdille magacaabis iyo doorashada ka soo bixi jiray meeday waxaan leeyahay maanta ma hayno madax doorasho ku soo baxday oo xasan cabdille ama madax ay dowladdu magacowday dowladda dhan ee wadani ee maanta curatay hal qof oo la magacaabay kama hayno oo aan ka ahayn nin baa layidhi mushahar baa loo qoray ummaddan dhan ee ilaa aas-aaskii somalilan ilamaa 60kii kursiga baarlamaanka somalilan aan la qura banayn oo maanta ka maqan oo beelweynta xasan cabdille ah taasoo ay ku timi maxay yidhaahdaayey dayac ka yimi beesha gudaheeda waayo beeshu hadday dilaalin yeelato dee madax ma yeelanayso beeshu hadday dilaalin yeelato madax ma yeelato sidaynu ku ognahay dee dilaallo wax la tirsada maahee jagooyin baa wax la tirsadaa xaggii magacaabista waa ka qatannahay oo hal nin baa la ii sheegay in mushaaharo loo qoray dowladda wadani doorashadii baarlamaankana xasan cabdille wuu dhacay ayaday riday maamul xumo waayo xasan cabdille wuxuu u codeeyey kobra oo jilibadan u codeeyeen wuxuu u codeeyey salaman dheere waxay beeshan u codaysay bile oo saraar uga codaysay waxay beeshan xitaa burco uga codaysay ranaax doorashadii baarlamaanka dayacaasoo ay keensadeen xasan cabdille gudihiisu waayo dadku haddii ay madaxdu ka xumaato geelu raggi hor jooga ayaa dhaqa hadduu raggi hor jooga geelu garan waayo geelu wuu data doorashadii xasan cabdille 4,000 iyo dheeraad buu ku keenay wadani ku galay wadanina xasan cabdille wuu ka dareeray iyadoo doorashadii madaxtinimada ee dalku ay wadani uu qarka u saaran yahay ayaa beelweynta xasan cabdille haddana ka dareerto kaahbay qabatay iyo 7 sano dambe taana waxaa keenay maamul xumo gudaha xasan cabdille waxaan ka digayaa oo aan loo dul qaadanayn mar dambe
إن أي باش وسيلة وضيع عنتها أي وضيع عنتها حتى برلمان كهذا صوص عندنا وديار جريدة شر دقدقة هذه هاي الرحمات كأننا حقائق هلا سوقية مع دو هذو سجل بقى ورناميو أو ساد كم نقول قاتل مرا علي بسام ما يقول إيه سبيل لو ما أنت وحسن عبد الله دورنا يا كاشامبور الله ما كان حسن كاشامبور بها الله ما كان أيام ما أنت كرسي قبوه هذا لا عمل يا وايو كرسي كان ينو صامري نكون بوليستين يدني وكذا يعمل شان المريا ما أنا بنبدأ له حق يا نبرك markay sidaa tahay maanta gaashaanbuur alla magan xasan ama gaashaanbuur baha alla magan ayaa maanta loo cimaamadayaa kursigan buuhoodle waa u diyaar garoodaysaan gaashaanbuur alla magan xasan waxaan leeyahay gudo iyo debed waa in la isugu yimaadaa shir degdega waayo maanta tookada idinkaa leh tii hore way dayacantay oo dayaceedii waniga soo sheegay inaanay tan maanta idinka dayanin waxaa idin leeyahay isu kaalaya shirna isugu kaalaya kii la doonaha laga dhigo dii la doona halkaa geeda la joogaynu ka dhigayna laakiin tookada gaashaanbuur allamayn xasan baa maanta iska leh saasaa maalinba nin loogu tijaabinaya kii hore lasoo tijaabiyeyna cod iyo maal naf iyo maalba la duldhigayna waxa weeye tabaabushihii ayaa ka xumaaday waa nasiib daro cid loogu celin karayaa ma jirayso maalinba sas marayaa kursigan kan buuhoodle markii la aas-aasayey dagaalkii buuhoodle ka dhacay ee foodkii ku dhacay ismaaciil ducaale ee ninka cumar daahir ku dhintay abubakar cumar cawil ayaanla bulqaasna ku dhaawacmay aabahayna ku dhaawacmay laba nin oo midna cawil ayaanla bulqaas yahay midna aabaha yahay waa tii buuhooda laga soo qaaday in cumar daahirna abubakar cumarina waa kii ku dhintay waa tii aabbaha iyo cawil la keenay iyo ninkii meydka ahaada hagoogani aabbaha ilaa hagoogani ilaa buuhoodle waa la soo qaad nin jiiday iyo nin qaadayba marna koox baa qaadaysay marna nin baa qaadayay marna laba nin baa qaadaysay aabbahay markii lasoo qaadayay ragga qaar baa jiidayay way ku naatanaayeen abaalkiina waa igu leeyihin ninkii soo qaadayna waan ogahay kii jiidayna waan ogahay kii soo qaaday ee ka soo qaaday hagoogane ee caynaba keeneen oo ogaa kaahin axmed buuxa gaarigii kaahin axmed baa lagu soo qaaday kursiga tabantabada ee tacabkaana aabba isagoo har qabo harsan iyo caynaba joogo uu buuhoodle u tegay oo ku banjaray ee lagu soo qaaday ee ilaa hagoogane tuurta lagu soo siday isaga iyo cawil ayaanla bulqaasba maanta inuu xasan cabdille ka qatan yahay oo kursigii bannaan yahay baarlamaanku aad bay nasiib darrowta laakiin waana dhici doonin tiriirkii dhaweydna khaladaad baa dhacay reerkiina hadduu dilaalin yeesho de sideed ahaanba waan sheegay horumar badan ma sameey sidaa darteed baha allamagan waxaan leeyahay gaashaanbuur allamagan xasan waxaan leeyahay tiriirka idinkaa leh shir isugu kaalaya u tabaabushaysta waa qurunida iyo xagaaga haddii ilahay ka dhigo xasan cabdille weynaha kalena waxaan kula dardaarmaya war maalinba mid baa dhabarka loo xoqaya maanta annakaa iska leh ardayga aan ka soo jeedaa iska leh xasan cabdille waxa la yidhaha waa 5 ardaa 5taa ardaayo xasan cabdille ka kooban yahay maanta inuu bilaa baarlamaan noqdo bilaa magacaabisna noqdo wax aqalga geli karaya ma waxa weeye Soomaaliland reeraha weligood fadhiyay hadday magacaabis tahay iyo hadday doorasho tahayba baarlamaanka weeyaan xasan cabdille waa 5 ardaa rag hadduu ku gaadho ama uu kor dhaafo ilaahu kada mooye uu iskeni karaa baha allamagan ya bidowga maxay yiraahdeen gaashaanbuur allamagan xasan waxaan leeyahay war diyaar garooda maanta idinkaa leh ka doontaan baa keenaysan xasan cabdille kanana sacabka inoogu garaacayaan waayo ilaa 60 kiiba inoogu sacabka u garaacayaan xasan cabdille marna habar socda dooranaysa marna salamadooda dooranaysa marna isaga is dooranayay maanta xasan cabdille isaga is dooranaya tolkii oo salamadooda wuu haystaa kursigana cid lagama leh habar jacna lagama leh kursiga buuhoodle salamadooda lagama leh ogeysiis taasna ogeysiinaya xasan cabdille